wax ka daran ma jiraan in inta beer abuurto haddana cudur uu baabi'iyo markii ay islahayd soo guro. marka videogan waxay la socotaa video hore aan soo deynay oo uga hadlaynay cudurrada ku dhaca basasha, maadaama ay muhiim tahay in cudurradaas lala dagaalamo oo la aqoonsado oo xilli fiican la iska qabto, lana fahmo waxyaabaha maaragtay yararka oo xilli hore lasii bilaabi karo si la isaga celiyo cudurkaas. marka videogan waxaan uga hadlaynaa cudurradaas ku dhaca basasha, oo weliba video waxaan uga hadlaynaa kuwa fungus ah oo dhibaato weyn u geysta basasha. fadlan ka faa'iidayso. السلام عليكم. كسر هذا الفيديو قال إني دارس فهم سومالي ومطلق إنك فايديستان ولا لها سوماليات مقعي وعلي باشي. فضلا هديك عصبتها كنال كان فهم سوماليا سبسكرايب ده ذلك نتابو سيسا كودا في الفيديو قصة سوق بينه. فضلا وجد بي ولو ذاك ولا لها كلا سوماليات يصيروا فايديستان ومحسنتين. سيدا شاكنا كسر هذا قيبتي اللبعض أو فيديو أنا واحد ليني عذر هذا كله بصشة وحاميهم إن عذر هذا سفي عن لو ما مله haddii la rabo wax soo saar fiican oo beertii faa'iido fiican laga soo saarayo in la helo. sidaas darteed ayaan maaragtay videos badan aan uga sameynaynaa cudurrada ku dhaca basasha oo aan u baahnayn in la fududeysto ee xilli hore ay muhiim tahay in lala bilaabo dagaalkeeda iyo iska waardiyiinteeda iyo ka hortaggeeda. marka cudurka koowaad oo aan video aan uga hadlayno waxaa la yiraahdaa rust. cudurkan marka waxaa keena funguska oo aan ognahay inuu dhibaato weyn uu ku hayo dalagyada intooda badan. sawirkan hadda marka kuu muuqda waa rust ku dhacay geed la yiraahdo leek, oo leega iyo basasha iyo toonta inay isku famil yihiin hore ayaan u sheegnay. marka waxaa u jeedaa inay ka muuqato marka dhibaato weyn oo caleentii ah. caleentii marka saas markay ugu dhacdo hadhow caleentii ayadaa baaba'aysa oo maaragtay photosynthesiskii iyo sidii u noolaa lahayd kama faa'iideysan karto. marka waxay u keenaysaa leega iyo basasha iyo toontaba wax soo saar weyn oo hoos u dhaca ayay u keenaa cudurkan. marka calaamadaha lagu gartaa inuu cudurkani uu rust yahay, calaamadahaas marka waxaa ka mid ah sida sawirka uga jeedid dhibco yaryar oo reddish u eg ama guduud u eg ayaa ka mid ah, oo weliba u eg maaragtay birta xalaysatoo kale camal u eg saasoo kale ayay uga muuqanaysaa. waxaas ka muuqdaana waa maaragtay waa funguskii. hadhow marka haddii si fiican ugu bato caleentii marka wuxuu ka dhigayaa inay noqoto jaalle, kabacdina ay si toos ah u dhimato iyadoon weynaan oo meel fiican aan gaarin. laakiin rastiga oo cudurka la yiraahdo oo funguska ah kuma dhaco marka basasha kaliya kuma dhaco ee wuxuu ku dhacaa dalagyo aad u fara badan ayuu ku dhacaa oo mararka qaar kumanaan noocyo ah oo kala duwan oo rasti ayaa jira. laakiin rastiga waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay familiyadiisa kala duwan, inay yihiin kuwa khaas ah oo geeda khaas ayay maaragtay target gareeyaan. hadda midkan sawirkan kuu muuqda waa qamadigaas ayuu target gareeyaa. mid marka waxaa jira target gareeya basasha oo si gooniya u target gareeya ayaa jira. marka way kala duwan yihiin. marka sida loo daaweeyo iyo sida looga hortago iyo qaababka loo maamulo way kala duwan yihiin cudurradan oo rastiga ah, waxayna kala saameeyaan geedo kala duwan. marka sidee loo maareeyaa marka cudurkan oo maamulkiisa iyo maareyntiisa sidee loo sameeyaa? dabcan sidaan ognahay cudurro badan oo fungus oo isagu uu ku jiro waxyaaba aadka u jecel yihiin waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdaa high humidity, in hawadii ay tahay ama greenhouse ha ahaato ama banaanka ha ahaatee meel oo maaragtay humidity ay ku badan tahay oo biyuhu ay ku badan yihiin hawada, temperature ama heerkul saa'idana leh. haddii geedaha la isku dhoweeyo la isku sii ciriiriyana oo sidii loogu talagalay si aan ahayn ama aan ku habboonayn ama xaaladda markaas jirta aan ku habboonayn haddii saa'id la isugu ciriiriyo waxay markaas caawinaysaa oo sahlaysaa inuu cudurkii si saa'ida uu usii faafo. marka sidaas darteed insha allah kulli waxaan rajaynaynaa video kale uga hadli doono maaragtay sunta iyo fungusyada loo isticmaalo cudurradan aan hadda ka hadlayno. marka sidaas darteed ayaa marka waxaa loo maamulaa hawada jirta iyo cimilada jirta iyo marka la siinayo fungicide-ka ayaa la isku aadiyaa. marka siyaabaha loo maamulo cudurkan waxaa ka mid ah horta cudurkan inuu ku noolaado geedaha nool kaliya inuu ku noolaado. haddii marka caleen nool uu ku noolaado ama geed nool uu ku noolaado haddii uu waayo saas ayuu ku baaba'ayaa. marka sidaas darteed ayaa marka waxaa la sameeyaa waa la kala wareejiyaa geedaha
ilaan waa anagii niri in geeda khaas ah uu mid kasta taarget gareeyo kii qamadiga taarget garaynaya hadduu qamadigi waayo kii basasha taarget garaynaya hadduu basashii waayo waxaa dhacaysa marka isagiina uu u baahan yahay geed nool inuu ku dhex noolaado inuu maaragta uu hoos u dhaco uu baaba'o ayaa dhacaysa markaas marka sidaas darteed ayaa waxaa muhiim ah oo kaartooyinka lagu maamulo cudurkan ka mid ah in geedaha la kala wareejiyo oo kala wareejis la sameeyo sidoo kale waxaa muhiim ah in nafaqo fiican iyo biyas fiican iyo geedkii inta la isku jirsiinayay intaasba in si fiican loo maamulo ayaa muhiim ah iyadana cudurka labaad oo marka halkan uga hadlayno waxaa la yidhahdaa pink root ayaa la yidhahdaa isagana waxaa keena fungus cudurkan isna waa cudurrada aadka u dhiba basasha oo saameynta weyn ku yeesha oo dhanka hoose ee xididka aad uga saameeya basashii marka cudurkan 1917 ayaa Mareykanka laga soo sheegay wuxuuna sameeyaa oo aad ugu badan yahay eriyooyinka oo ciiddu ah temperaturekeeda ama heerkulkeeda uu aad u badan yahay basasha iyo toonta labadaba wuu saameeyaa weliba wuxuu cudurkani aad dhibaato weyn u geystaa basasha markii ay lagu koriyo ciid oo aan biyuhu ka dhex bixin oo biyuhu dhex fariistaan ciidahaas oo kale dhibaato weyn ayuu u keenaa uu ku dhex faafaa marka sidaas darteed marar badan waxaa faa'iido ku jirtaa in ciiddu aysan biyaha dhex fariisan oo biyihii ay ka dhex baxaan calaamadaha marka cudurkan lagu yaqaano waxaa ka mid ah sida aad magaca ka dareemaysid in xididkii ay noqdaan kalarka binkiga ah ama jaallaha oo dhinaca guduudka xiga inay noqdaan mararka qaar xataa inay isku bedelaan aakhirkii bink madow inay noqdaan ilaa kalarkooda uu sii bedelo uu sii madoobaado kabacdina ay saas kusii dhintaan haddaad sawirada ka fiirisid oo aad pink root ku qortid waxaa arkaysaa markaas calaamadaha uu leeyahay cudurkan adhow marka waxay noqonaysaa aakhirkii inuu xididkii intay yaraado uu baaba'o uu wax yar uu noqdo oo intii xididkii uu sii weynaa lahaa oo dhul badan uu qabsa lahaa waxaa arkaysaa xidid yar oo gaaban oo aan meel gaarayn inuu isku noqdo sidee marka cudurkan oo pink rootka la yiraahdo loo maamulayaa marka waxaa jira marka haddii aad fiirisid inay jiraan basallo qaar oo u dulqaadan kara cudurkan oo uusan waxba ka qaadayn badanaa mararka qaar way ku qoran tahay ama markii aad abuurto ayaad arkaysaa inay basalladu aysan isku mid ahayn marka basal haddaa aragto ay ku qoran tahay inuu resistant u yahay kuwaasoo kale ayaa lasoo gataa marka waxaa la fiiriyaa seedska aad soo gadanaysid haddii aad koley dabcan seed tayale aad soo gadatid inaad fiirisid cudurrada uu maaragtay resistantga ku yahay haddii marka cudurkaas uu ku dhibo waxaa la raadsadaa marka basal oo resistant ku ah cudurkaas oo u dulqaadan karta taas marka waxay ka mid tahay kaartooyinka la isticmaalo dabcan sidii kuwii hore aan soo marnana oo mar kastoo cudur aan ka hadalno aan sheegaynana waxaa muhiim ah inaad maaragtay plant stresska waxa la yidhahdo dhibaatada geedka soo gaaraya inaad yaraysid oo biyihii ku habboonaa nafaqadii ku habboonaa weedskii ama haramihii aan la rabin inaad ka wareejiso meesha oo ka goyso crop rotation inaad samayso toon basashii ku habbooneed meeshaas aad wax ku abuurayso inaad soo qaadato waxyaabahaasoo dhan muhiim waxa ah inaad awoodda saarto haddii mararka qaar waxaa jirta seedlinkii markii aad abuurto oo pink root uu ku dhaco oo cudurkii aad ka arkayso xididkii oo pink noqday inaadan abuurin ayaa fiican maxaa yeelay haddii aad abuurto ciiddii ayuu ku noolaanayaa hadhow wuxuu samaynayaa marka in dhibaato weyn uu kuu keeno oo maaragtay uu kaa sameeyo geeda kaloo aad abuuri lahayd marka haddii aad ku aragto seedlinka markaad soo bixisid xididkooda aad fiiriso iyagoo binki noqday oo cudurkii uu hayo waxaa la iskula taliyaa inaan la abuurin kaas oo la iska daayo weliba mararkaasoo kale oo aad aragto meeshaas inuu cudurkaasi ku badan yahay 3 sano ilaa 5 sano xataa qaybtaas oo cudurka aad ka heshay inaadan ku abuurin basal ama toon ayaa la iskula taliyaa sida aan marar badan horena usoo sheegnana cudurrada qaar waxaa kula dagaalami kartaa waa kaartada la yiraahdo soil solarization weliba bilaha aadka ay u kulul yihiin dabcan beertoo dhan kama dhigi kartid waa qaali laakiin nursery-go kale haddaad rabtid inaad cudurka la dagaalantid waxaa samayn kartaa inaad qaybtaas aad saartid bacdii bilahaas kulaylka oo aad cudurro badan asaas ku gubto cudurkan kale oon ka hadlaynana waxaa la yidhahdaa Fusarium basal rot ayaa la yidhahdaa isagana waa fungus oo isaguna wuxuu ku dhacaa xididka mararka qaar pink rootka iyo kan way isku eg yihiin sida ay maaragtay pinkiga u wada yihiin oo waxaa laga yaabaa inaad labadooda aad kala aqooweysid marka waa cudur kale oo isaguna xididkii ku dhaca oo sidaan keena inuu xididkii noqdo binki noqdo oo baaba'o ka dhiga waana marka cudur ciidda ka dhasha dhexdeeda
oo laga helo adduunyada oo dhan laga helo. marka cudurkan wuxuu ku dhacaa familka oo basasha oo dhan ayuu ku dhacaa sida toonta oo kale, laakiin wuxuu aad u saameeyaa basasha iyo toonta, labadaas ayuu aad u saameeyaa. calaamadaha lagu yaqaano cudurkan waxaa ka mid ah in geedaha uu ku dhici karo horta xilli kasta, growth stageka ay rabaanoo kasta ha ahaado, xilliga uu ku dhacayaa waa mar kasta oo ay korayso basashii wuu ku dhici karaa. laakiin waxa ugu daran markii dhaawac uu gaaro, kaba soo qaadba adoo weyd iska bixinay sidoo kale haddaad dhaawac gaarsiiso cudurkii saas ayuu ku gelayaa. xididadii haddaad dhaawac gaarsiiso fangaskii sidaas ayuu ku gelayaa. marka waxaa muhiim ah inaad isku daydid inaadan xididkii aadan dhaawac gaarsiin oo dhibaatada aad ka ilaalisid. marka dhibaatooyinka koowaad oo marka hore aad arkaysid oo ka muuqanaya waxaa ka mid ah in caleentii ay laalaabanto, jaalle inay noqoto, kabacdi ay isku kuuskuusanto ilaa ay ay dhimanayso. waxyaabaha kaloo ka mid a waxa weeye markii aad isku daydo inaad soo bixiso, hadday geed kasta macdo inaad soo bixiso oo ku dhacay, maadaama xididkii uu baaba'ay oo tacbaan uu noqday, si sahal ayay kusoo baxaysaa oo ileen xididkii dheexaa meesha ma yaallo, sahal ayay kusoo baxaysaa. haddii marka hadhow basashii kasoo baxda meeshaas aad kala jarto oo dhexda aad ka kala goyso, waxaa arkaysaa marka qaybo brown ah ama nooca sawirkaaga muuqdoo kale ah inay yeelanayso. basashan marka waxaa laga yaabaa markii aad soo qaadaysay oo aad beerta kasoo guraysay, haddii aad jari lahayd inaysan lahayn calaamadan hadda ka muuqatoo kale. laakiin mararka qaar waxay noqotaa markii aad keydisid ayuu sii bataa, uu sii koraa, uu aad markaas u qabsadaa. markii hore soo qaadaysa waxaa laga yaabaa inuu kula fiicnaa, laakiin kabacdi ayay hore ka halaabaysaa maadaama cudurkii uu kusoo socdo meesha uu soo galay. marka sida tan nadiifka oo caafimaad ka muuqdo kale oo saas ah oo kale ma ahan ayada. marka sida aan nirina xilli kasta ayuu ku dhici karaa maadaama biyo iyo geedkii xididkiisii hadduu meesha ka helayo, laakiin waxaa sii caawinaya oo usii fududaynaya inuu cudurkaani sii faafo markii dhaawac la gaarsiiyo xididka oo xididka la dhaawaco. markaas wey marka uu si saa'id ah uu usii faafaya u qabsanaya. marka sida aan sheegnana intii aad markaad soo gurto basashaadii ayuu waxaa dhici karta inay baaba'santaha oo cudurkii uu ku dhacay, ama waxaa laga yaaba in markaas fiicneed markii aad geyso meeshii aad ku kaydi lahayd uu hore uga dhaco cudurkii oo ku baaba'do. cudurkaana wuxuu aad u badan yahay markii lagu korinayo basasha meesha heerkulkeedu uu aad u sarreeyo, oo markii temperatureka ama heerkulku uu gaaro 25 iyo 29 celsius, markaas weye marka uu aadka uu u faafaa oo saa'idka uu noqdaa. maaraynta marka cudurkan la maaraynayo sidii aan kuwii hore o dhan aan kusoo celcelino aan sheegnana waa inaad dalaga kala wareejisaa, ama galley abuur ama qamadi abuur ama yaanyo abuur, waa inaad kala wareejisaa oo aad familka basasha aadan abuurin oo aad kala wareejisaa. galleydaasoo kale iyo yaanyadoo kale iyo xitaa oatskoo kale iyo haddaa isticmaasho iyo cawska qaar ka mid ah oo dhan haddaa isticmaasho, waxaa dhacaysa in fangaskii uu ka jiro meesha ciiddii uu ku dhex jiro, xididkeedii uu ku jiro, laakiin calaamad ma tusinayo oo wax symptoms ah oo ama calaamado ah kama muuqanayaan. marka sidaas darteed ayaa loo kala wareejiyaa oo kuwaas waxba kama qaadayo. sidoo kale aan hore ugu soo celcelinana waxaa muhiim ah inaad isku daydo inaadan xididka dhaawac aada gaarsiin markii aad soo goosanaysid basasha oo aad soo bixinaysid, inaad isku daydo korkeeda inaadan dhaawicin oo iyadoo aan dhaawac ahayn aad meesha kasoo bixiso. haddii aad dhaawacdo cudurkiina uu ciidda ku jiro wuu dhex gelayaa. sidoo kale waxaa muhiim ah markii aad soo guratid basasha inaad xilligii loogu talagalay iyo qaabkii loogu talagalay waxa la yaqaano kiyo waxa la yiraahdo ayaa jira inaad samaysid. kulli insha Allah markii aan gurashada aan ka hadlayno ayaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qaabka loo soo guro iyo qaabka kiyurka basasha loo sameeyo si aysan ugu halaabin markii aad keento meesha aad ku kaydin lahayd. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad video ka faa'iidaysatay. intaa marka video kale ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaah iyo beerasho wacan.